Majaajilista Cabdi Muriidi Dheere Ajakis oo ka mid ah howlwadeennada TV-ga Universal isla markaana ah shakhsi si weyn ay u wada garanayaan shacabka Soomaaliyeed ayaa imika lagula tacaalaya xaaladiisa caafimaad isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Ajakis waxaa ku soo booday xanuun waxaana hadda uu ku jiraa mid ka mid ah isbitaalada ku yaala gobolka Banaadir. Dhakhaatiirta ayaa imika la tacaalaya xaaladiisa caafimaad. Mar qura iyo ehelkiisu ay sheegeen in istaag uu ka dhacay. Ugu dambeyntiina waxaa loola cararay isbitaal oo imika xaaladiisa lagula tacaalayo. Boqolaal qof oo saaxiibada iyo sidoo kale taageerayaasha Ajakis isugu jira iyo qoyskiisa qeybo ka mid ah ayaa imika hortuban isbitaalka uu ku jiro Ajakis, kuwaasoo dhammaantooda u duceynaya in Ilaahay caafimaad taam ah uu siiyo. Majaajilista Cabdi Muriidi Dheere Ajakis waxa uu ka mid yahay majaajilistayaasha sida weyn loogu yaqaana geyga Soomaaliya, isagoona ka qayb qaatay jilista ruwaayado, sidoo kalena waa madadaaliye aad ay u jecel yihiin shacabka Soomaaliyeed. Aanu wada duceyna dhammaanteen in Ilaahay caafimaad taam ah uu siiyo Ajakis, maadaama imika xaaladiisa caafimaad laga deerinayo welina uu yaallo ama uu ku jiro isbitaal. Waxaana ehelkiisu ay sheegeen in imika ay weli ku howlan yihiin xaaladiisa, dhakhaatiirta la tacaalaysa xaalkiisa.